labaatanka bisha shanaad 2019 waxaanu booqasho ku tagnay halka ay ku sugan tahay Faadimo Axmed Cali oo 65 jir ah isla markaana ku dayacan gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo cunaha uu ka soo baxay nabar weyn oo isla markaana dhiig iyo dheecaanba ay ka qubanayaan markasta inan ay dhashay Faadimo Axmed Cali ayaa sheegtay inaanay hayn dhaqaale ay ku geyso dhakhtar dibadeed iyadoo marba marka ka dambeysana ay ka sii darayso xaaladeedu waxaan kula soo darsay imika 2 sano waxaan cunaa way kaga yaaleen imika muddo ilaa 4 bilood ilaa 5 bilood ayaa maalinba maalinta ka dambaysa meel baa sidii wax cadaan soo fiin ka soo baxay oo kale ayay noqonaysay dadna way dilaacaysay dadna dhaqaatiirtii baan u geynay gudaha ayay uga dalooshaa dushana way ka dalooshaa baa leeydi dadna hungurigeedu khatar weeyaan u dalooshamaya ilaa hunguriga ilaa dhuuntu isu dalooshaa dadna dhakhtar geeyo baa dad baa lacagna siiyay lacag yar baa loo ururiyay dhakhtar baan u geynay dhakhtarkii wuxuu yidhi nin Soomaaliyo ha anigu ma qali karayo waa qof weyn waa qof ka hadalkayso xanuunkeeduna aad waa u khatar weeyaan ma qali karno dhaqaatiirta kale dibadaha ama dibadda geeya ama Itoobiya geeya ama dhaqaatiirta Turkiga u geeya dadna dhaqaale anigu aan ku qaado ayaan waayay miyay ka soo guurtay buulkeedina wadiga arkaya daadka galay xalayna uu qaatay habeen saddexaadkiina saas leeg bay hayd dadna anigu habeen iyo maalin waagaas ay ugu bariyo ma seexdo saasan u dul fadhiya waaga iyo bariyo intay dad hurdaan anigu waan dul fadhiya si ay xubnaheedana shaqeeyaan aan soo sare fadhiisino way meesha soo fushuuqaysa dhiigu soo fushuuqaya dadna cudbi baan geliyay si aan dhiigan fara badan aan maxay heetay islaanta waxaan siday waa inta sabid ay serious noqotay dadna cudbi anigu dhakhtarna xitaa ana gacanteeda ku dheer dhakhtarku wuxuu yiraahdaa habeen walba lacag kan buugu markan dhow dhakhtar ugu yeeray lacag iga qaadeen baan waayay aniga dhaya ana cudbiga geliya ana maxay heetay dawooyin yar oo la soo qoray siiya kiniinada siiya qalatiyayaal meel hoos u daloosho cunaha dushiisa sii daloosha dawo waxba kama tarayso walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa in xaaladeeda caafimaad waa hooyada dhiban in qof walba hooyo way dhashay marka waxaan doonayaa in maxay heetay la soo gargaaro oo aan si aan dhakhtar caafimaad aan degdeg ugu geeyo ayaan doonayaa in la soo bil Ramadaan tisaala khayr qof walba miisaanka xasanaadka aakhire u tagaysa dadka jaarka la ah Faadimo ayaa iyaguna muslimiinta ku kala nool caalamka u weydiiyay inay soo caawiyaan Faadimo Axmed Cali si dhakhtar dibadeed loo geeyo waxaan ka codsanaynaa dawladaha islaamka reegarowiyaan in dar Ilaahay loo soo gargaaro wataa ilmeedana wax ma haystaan reer miibay ahayd aqalkan hadda aqalka kharaabay buu hayo ana dar Ilaahay ilaah loogu hayo marka waxaan dadka muslimiinta ka codsanaynaa in dar Ilaahay wax ay ugu qaban karaan iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo intaba in wax loogu qabto fadlan wixii tabarucaad aad ku caawinayso Faadimo waxaad ugu soo diri kartaa lambarka shaashada ka muuqda